الله وبركاته. halkan waxaan ku fadhinaa anigoo ah Salebaan Xaaji Maxamed Samatar iyo Aadan Cabdullaahi Shuuriye oo ah gudoomiyaha media. halkan maanta waxaan isku yeernay saxaafadda waan doonaynaa inaan ku muujino press conference shirkii Khaatumo 2 ee bariyaha kanba ka socday madasha Talaax ama degmada Talaax ee gobolka Sool deegaanada SCC ayaa maanta ergooyinkii waxay soo abjareen go'aamadii ay bariyaha kanba u fadhiyeen oo ay ahayd inay ka soo go'aan bixiyaan ka soo taliyaan go'aan cadna ka soo saaraan arrimihii ahayd inay bulshada ama shacabka SCC ay bariyahanba ay doonaysay inay ayooda ka tashadaan sidii ay arrimahaas falanqayntii arrimihii lagu jiray go'aan laga soo saaro ayaa maanta go'aankii ugu dambeeyey ka soo baxay insha allah billahi tacaala waxaanu jecelnahay maanta inaanu idiin bayaamino go'aamadii ka soo baxay shirweynihii Khaatumo 2 waxaana ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha media oo arrintaas si tafatiran qodobada inoo akhriyi doona waa Aadan Cabdullaahi Shuuriye. aadan ku soo dhaweey. والمحسنتي السلام بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمان بعض الصحافة شعبك SCC ميري شوغانبا شعبك الصومالي ميري شوغانبا وحنكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا سليمان حاج محمد كقدواتي وحان قد رواينا هذه آخرية شركة خاتمو بريها كنت كسعودي مقالة تلاح وسيد الله سعطان فرمي بشي ديسمبر يحلواتين كيدي saddexdii casho u dambeeyana ergooyin ka kooban ilaa 400 ku dhawaad oo ka kala yimid gudaha iyo dibadda dalka ay ku lahaayeen dood iyo falanqayn dheer oo 3 casho socotay. waxaa maanta ka soo baxay go'aamo aad muhiim ah oo runtii la oran karo waa maalin aad ugu weyn bay noqonaysaa maanta shacabka SCC deegaanka SCC iyo ummadda Soomaaliyeedba. go'aamadaas ayaan insha Allah idin akhriyayaa. bishu maanta waa 10 bishii koowaad sanadkii 2012 waa war-saxaafadeed ka soo baxay shirka Khaatumo ee lagu qabtay magaalada Talaax. ergooyinka shirka Khaatumo 2 ayaa maalintii labaad ka dooday ajandihii shirweynaha Khaatumo 2 ee lagu qabtay magaalada Talaax. waxaa saaka hawlahoodii ka sii watay madasha shirka dhammaan ergooyinkii oo ka koobnaa ergooyinka gudaha iyo qurba joogta. dood dheer iyo falanqayn kadib waxaa ergooyinku u codeeyeen oo la isla qaatay go'aamo aad muhiim u ah oo masiirka deegaamada Sool Sanaag Cayn. waxaa ergooyinku fadhigii saaka ugu codeeyeen in deegaamada Sool Sanaag Cayn loo sameeyo maamul goboleed u gaara oo mas'uul ka noqda aayaha deegaanada shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobolada Sool Sanaag Cayn. go'aankan iyo go'aamo kale oo muhiim ah waxaa la soo hordhigayaa shirweynaha berrito markuu furmay insha Allah tacaala oo laga ansixin doonaa. laakiin go'aankaas waa la isla qaatay ergooyinkii way ansixiyeen shirweynahana berrito dib loogu celin doonaa. maanta waxaa madasha shirka iyo bardaha weyn ee shirku ka socda ka muuqday runtii farxad dabaaldeg rayn aad iyo aad u qurux badan iyadoo jidadka magaaladana sidaad idinkuba arkayseen ay baabuur iyo dad aad u faraxsan ay marayaan oo ruuxaya calankii dalka Soomaaliya. maanta waa maalin weyn aad taariikhda u geli doonto ummadda Sool Sanaag Cayn. aad baan idinka mahad celinayaa intaynu dib u kulmi doono. waxaan haddana ku celinayaa Salebaan Xaaji Maxamed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقوامada waa sidoo nagu sheegay go'aamada Aadan Cabdullaahi Shuuriye waa go'aamo dhaxalgala waa mid la sugayay waa mid in badan loo fadhiyay waa mid si tafatiran looga fakiray waana mid maanta shacabka SCC meel walba ay joogaan ku farxi doonaan. waa maalin qiimo badan insha Allah billahi tacaala. waxa weeye shirka wali wuu socdaa arrinkuna halkiiba ka sii socdaa faahfaahintii iyo magacii maamul goboleedka iyo hawlaha dambe iyo sida loo dhisi doono iyo sida isku dhici doonana gadaal baan kaga sheegaynaa. halkan waxaan u hambalyeeynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan sida ay noogu soo taanideynayaan siday uga warsugayaan shirkan Khaatumo ee taariikhiga ah ee muddadanba ka socday magaaladeennii taariikhiga ahayd ee caasimadda ugu horeysay Soomaaliyeed ee Talaax iyo shacabka SCC adduunka meel walba adduunyada dacaladeeda ka joogaan baanu ugu taanideynaa uguna hambalyeeynaa saxaafadda
Soomaaliyeed ee dhammaan iyaguna sida tafatira nooga soo qayb gashay press conference-ka joogtana aad baan isku hambalyeynaa sidaa iyo guul iyo warka dambe insha Allah wax ka dambeeya assalaamu calaykum yar baan ku darsanayna shirka taariikhiga Khaatimo 2 wuxuu ka bilaabay degmada Taleex 26kii bishii November ilaa maanta oo bishu tahay December 8 tahay oo ah muddo hadda 12 cashi baan filayaa inay tahay maanta bishu waa 10 aad baad su'aasha ugu mahadsantahay aad weydiisay waa run shirku wuxuu bilaabmay December 26keedii maantana waa January 10keedii waa bishii koowaad bishii January 10keedii weeye shirkuna hadda wuxuu socday muddo 14 cashaa buu socday muddada uu socday waxaa lagu jiray gorfayn waxaa lagu jiray doodo waxaa lagu jiray in analyze gareeyo situationka iyo sida wax yihiin hadallo badan iyo dood badan iyo qorshe badan baa socday markay soo dhamaadeen ayaa waxaa go'aamada loo saaray in ay ka soo taliyaan oo go'aan ka soo gaaraan muddo 3 casho ah gooyinkii loo xuray inay go'aamada la isla soo gartay ay go'aamiyaan oo ay ka soo saaraan exactly waan cad go'aankiina waa kanaynu maanta helnay oo aadan cabdilaahi shuuri hadda inoo sheegayay oo inoo akhriyay hadda iyagoo tafatiran marka 3 casho hadda fadhiyeen go'aamadii la isla soo gartay ee soo socday bay ahayd in la dhammaystiro oo la isla soo gaaro maanta la soo gabagaboobeen kuna soo dhamaaday bulsha iyo sida go'aamada loo waxaan halkan uga hambalyeynaa haddaanu nahay shacabka SSC ama shirka Khaatimo qabanqaabadiisa mas-uuliyiinteedii iyo haddii la bidku leeyahay howlwadanayaashii iyo dhammaan shacabka SSC waxay halkan uga hambalyeynayaan dowladda federaalka iyo dadkii nooga soo taariideeyay arrintan iyo shirka kan aan ku jirno iyo sida wanaagsan u socday iyo sida dadku masiirkooda iyo ayahooda uga tashanaya aad u soo dhaweeyeen iyo siday doonayeen inay nabad ugu soo dabaalaan deegaamada tan baan aad uga hambalyeynaa waxaan kaloo aad uga hambalyeynaa dadkii reer Laas Qoray haddii la bidku leeyahay baran maasha Allah gobolka Sanaag dhammaantii hambalyaday noo soo direen iyo gubaabadeena gubaabinayeen iyo dhiirigelinteena dhiirigelinayeen waxaan leenahay aniguna waan ku guuleysanay idin kala weydiiso bilaa haddii waa bidno buuhoodle shacabkii joogay meel walba ka maaragtay arrinta ka saboorgareynayay Laascaanood ilaa iyo Gaalkacyo shacabkii Gaalkacyo baaqa soo diray ay u taaniideynayeen shirka Khaatimo iyo go'aamada ka soo socda insha Allah iyo dhammaan jaaliyadaha dibadda meel walba ay joogaan iyo Soomaali weyn oo dhan iyo cid allaaliya ciddii maaragtay la garab taagneed ee la saboorgareysay waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin khayr baan idin rajeynayaa aadna waad u mahadsantihiin thank you very much wassalaamu calaykum waraxmatullahi shirkan taariikhiga ah ee Khaatimo 2 ee muddada ka socday Taleex ay bilaabmay November 26keedii oo maanta oo 28 ay joognaan soconayo maanta bishu tahay 10 oo December oo muddo ilaa ay soconayay 14 casho soconayay November waxaa tusinaya dhammaanteen go'aamadii maanta la ansixiyay baranna wadiin akhrinay go'aamada iyo kuwa kaloo badanna dowladoodii way socdaan oo waxaa laga ansixin doonaa shirweynaha waxaan idin sheegayaa inay wali fare ka qodnayn oo halkaas shirki ka sii socon doono oo hoos loo daadegi doono oo qaabkii iyo haykalkii iyo wixii la gudageli doono marka intan wan yaro hordhaca aan idin sheegnay weeye laakiin shirkii wuu socdaa khatinkiisa iyo wixii dambe ka soo kordhana insha Allah goobjoog baad noqon doontaan waan idin la socodsiin doonaa maalin walba wixii ka soo baxana waa inoo halka kan waan idin soo gabagabo waan idin soo gaarsiin doonaa insha Allah taala aad baan u mahadsantahay